barbilowga shay waliba. taariikhda Falastiiniyiinta iyo Yahuuda u dhaxaysa ma ahan mid madhow ay soo bilaabatay. haddii aan u samayno gogol xaar, taariikhda markay ahayd 1947 qaramada midoobay ayaa go'aan ka soo saartay in loo qaybiyo dhulka Falastiin laba dowladood. 78% in la siiyo Yahuuda, 22% soo harayna in la siiyo Falastiiniyiinta. qaybaha Falastiiniyiinta la siiyo waxa ay kala ahaayeen daanta galbeed iyo marinka Gaza oo hadda dagaal uu ka socdo. kadib Yahuuda ayadoo kaashanaysa dowladihii markaasiba riixayay go'aanka sida Ingiriiska iyo Mareykanka ahana kuwa ku guuleystay dagaalkii labaad ee adduunka, ayay isku daydeen mar kale inay qabsato dhammaan guud ahaan dhulka Falastiiniyiinta sida daanta galbeed iyo marinka Gaza. dagaalo socday muddo badan una dhexeeyay dowladaha Carbeed xilligaasi taageerayay Falastiiniyiinta iyo Yahuuda ayaa wax badan iska bedelay istiraatiijiyada dhuleed ay doonaysay. laakiin muuqaalkan kagama hadlayno taariikh hore iyo wixii la soo dhaafay iyo madaxdii u taagneyd difaacida dhulka Falastiin inay tageen iyo inay booskii bedeleen hogaamiyeyaal maqarsaar u ah galbeedka. waxaan ka hadli doonaa wadciga hadda ay ku jiraan Falastiiniyiinta laga soo bilaabo 7 Oktoobar sanadkii hore 2023 xaalkooda sida uu yahay iyo meesha ay We have breaking news out of Israel this morning where Hamas has launched a surprise attack. Israel has declared war after Hamas militants launched a surprise coordinated attack. אנחנו במלחמה. לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. Many of the scenes in Israel are shocking and terrifying. برا وبحرا وجوا، هجوم غير مسبوق شنته الفصائل الفلسطينية على أراضي غلاف غزة المحتلة في عملية مباغتة ومفاجئة. توقيت الهجوم ارتبط بحدث ضارب في عمق تاريخ المنطقة 7 أكتوبر.